wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. wafdiga wasiirka ayaa waxaa la filayaa in ay ka qayb galaan shirka wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee wadamada Islaamka oo lagu wado in maalinta berri uu ka furmo magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook wasiirka dhalinyarada ayuu ku sheegay in shirka uu la wadaagi doono marxaladaha garoomada ciyaaraha Soomaaliya guud ahaan iyo sidoo kale dhibaatada ka jirta, waxaana lagu wadaa in maalinta berri shirka furmayo uu ka jeediyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya khudbad taas oo uu ku sheegay in uu ku codsan doono in lala yimaado fikir midaysan oo dunida Islaamku ay ku midaysan tahay kuna wajahdo xaaladda argagixisada maadaama dhibaato badan ay ku hayaan guud ahaan wadamo badan oo Islaam sida uu hadalka u dhigay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.